kulan maanta ay ku yeesheen hay'adda culimada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee ahayd qof lagu gubay magaalada Muqdisho war-saxaafadeed ay arintaasi ka soo saareen hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa saxaafadda u akhriyay Sheekh Bashiir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ujeedo bayaan ku saabsan dilkii iyo gubidii marxuum Axmed Mukhtaar Saalax hay'adda culimada Soomaaliyeed ayadoo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda waxay soo saaraysaa bayaankan culimadu waxay dareenka la wadaagaysaa qoyskii dhibaatadu gaartay waynu tacsiyeynaysaa waxaan leenahay marxuumka Ilaahay ha u naxariisto dhammaanteena sabar iyo iimaan Allah naga siiyo subhanahu wa ta'ala labo waxaan cadeynaynaa in ficilkaasi yahay mid ka soo horjeeda diinta akhlaaqda iyo dhaqankeena wanaagsan uuna halis ku yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed saddex waxaan xusuusinaynaa ummadda Soomaaliyeed qowlka Ilaahay ku leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun iyo qowlka Ilaahay yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أفر وحان عضينا إن إسير صوعة يصد يسحق رد أي تهي حاران كان متهدا بيدا واوين سيدا كوعد آيات عن صواء آخرين نبينا صلى الله عليه وسلم الحلية هي qofka waxa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah xadiidkan waxa wariyay Bukhari iyo Muslim shan waxaan ugu baaqaynaa dawladda iyo shacabka in loo gurmado dadkii iyo aqoontii uu ka tagay marxuumkaas lix waxaan ugu baaqaynaa dawladda iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada in loo guntado sidii loo soo afjari lahaa cudurkaas dilaaga ah wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhanka kale Sheekh Cali Wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha diinta ayaa isaguna goobta ka hadlay waxa uuna ku dheeraaday in qof bila aadana la gubo waxa uuna arinta haybsooca ku tilmaamay mid ah jaahilnimo lagana wanaagsan yahay arrimaha noocaas oo kala in ay dhaqan ka noqoto Soomaaliya jaahiliya waa wixii carabtu ku dhaqmaysa qabla islaam waa in la isxaqiro la isfaquuqo oo la ishaybsooco oo la yiraahdo maartay dadkan waa nasab dadkan fadhiman waay dadkan waa jariir dadkan waa jilac isku guursadaan waxyaabaha jaahiliga ah oo hadda maanta dadka qaar wala qalbigooda ku jira ayay meel iska dhigaysaa asay islaamka qaadanaysaa ama islaamkii sax sidoo ahayo ama jaahiligaas ku soconaysaa waxa dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii kuwii 20 sano nabiga sallallahu islaamka uu fidinayo 13 kamida marka ayuu joogay dadkii oo intaan soo jiran waxyaabaha dadka ka dhisay waxa kamida arrintan si qaad oo noocyay oo bayaan ayadahaas macaanidooda ka baraay dadka waxa la baraay in laga raro jaahiliya كدسن قدح إن لعابده إن لسيب سعو ولا كرفانه التفاخر بالآباء والأنساب قبائل كقار إيسا يبقوا سب أخرين إني نسبيين كوا كلاتنا نسبيين حاسة عرفت الجاهلية كتني وكآيات القرآن كيساعد الشيء الله النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب لما أنت من آدم بتكون من آدم عرو كيدي التسلينا دي أصل كيات تاسوى الله فضل العربي على العجمي إلا بالتقوى يعني نين عربنا نين عجمت وحي هذا دد كان عرفت أهين أما كي مدينة أفريقيا سيدي بلال يقول مع الرب أما كي مدينة حتى غربية أما فارس كي مدينة سي سلمان فارسي أما صهيب الرومي ودد كاسيرو بهذا الكوارت السدئية دد كاسور أنت عرفت أهين عرفته كفانيس مركزية ساي ولبا عرفت هذا الحدة سيك الفانيس قبائل كقاركود قارك الاستفاناي هذا نهلك قبيلة سيك الفاناي وحصل وعذر الدلاء عقيدة حماء وأصل كرسالة بني آدم كرامة إلهي هي أصل كرسالة الإسلام وأدت كان إنت لما ذايو
xoogooda iyo xirfadahooda la mideeyo caqiido lagu hago koonkan ay ka sameeyaan isbeddel rasmi ah oo ilaahayna ay adduunyada ku caabudaan aakhirana jannada ilaahay galaan iyagoo walaalo ah ikhwatun iyagoo mutaxaabiina loogu talagalay risaalada islaamka laakiin haddii qof ay durto nasabkeeda qof ay caydo haddii la yidhahdo nin muslim oo salaada safka hore ku dukanayo gabadhii uu kaasoo doonta la yidhaahdo lagu siin maayo diin loogu diidi maayo abtirtinadiisa loogu diidaayo iyo muuqaalkiisa ama maaragtay jirkiisa siduu yahay midabkiisa ha noqoto sidii carabta iyo cajamta anu isku midab amnaan kulligeenba isku jiraannahay isku muuqaala wadana soomaalidaana maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star t v magaalada muqdisho